السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta فيديو أيام دوبا Soomaali meel kasta aad joogtiin waan idin salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqosho wanaagsan, daawasho wanaagsan. Maanta waxaan iin wadaa qisana ma oo waa wax dhacda oo run ah magaalada aan deganahay ka dhacday. ciidii markeed arafo ayaa waxaa dhacay wiilkii ku xigay ayaa wiil Soomaaliyeed gurigiisa isku ceejiyay oo da'diisa 20 sano jirto waa taas soo dhigay. waxaan ka calool xumaadaa magaalo yar oo yar ayaan deganaa oo tuulo ah. waagii hore waxaa Soomaalida iyo dadka ajaanibta Carabta Falastiinta Suuriyiinta Suudaanta ma ku badnaa jirin. Bakistaanta xataa hadaba kuma badno. magaaladii magaalo yar iska ahayd oo adiga iska faqrisan oo Yurub meel kamida ku taalo. waxaa dhacday sidii la sheegay wiil yar oo Pakistan ayaa la dilay oo 20 sano jiro oo aniga aan garanayo oo familkiisa aan kasaayo ayaa jiro. marka wiilkii yaraay hooyada waxay qabtay 2 wiil iyo hal gabar. gabadha ayaa weyneed wiilka ku xigay mid kale oo 18 jir ayaa u yar. wiilkii iyo wiilal meel aan markasta aan maro oo dhinac kale aan ka mari karin. waagi hore dhinac kale ayaa mari jiray meel aan deganahay, laakiin hadda meel halkaan aan soo degay. wallaahi markaa meeshaas soo marayo subaxdii waxaan ku marayaa latiif bas. markaan hal saac aan marayay ilmahaas way joogeen. markaan soo noqoyay subaxdii haddana ilmahayga wada ilmahaas waa jooga. waxaan ka calool xumaada oo aad iyo aad caloosheyda aniga wiilkii Soomaaliga oo isdilay ka calool xumaay ka ooyay ka waashtay. haddana waxaa igu soo xigtay wiil yar oo Pakistan sidii meel kasta laga dulduleeliyay, sahal lagu dilay, sahal lagu googooyay, sidii bahal camal loo cunay hilibkiisa ayaan ka calool xumaaday. wiilkaas yarkaa wuxuu u dhintay 5 baan ayuu u dhintay. haba u dhintaba 5 baan dhib maba lahoba tiisiyaa soo gashay. laakiin waxaan kasii calool xumaadaa magaaladan tuulo yaray ahayd ma ku badnayn ajaanibta. waagii 2005kii 60 waxaa isdhiibi jira Asylum Seeker, dadka yaqaana ayaa yaqaano. waxay bilaabeen 2010kii ayay waxay bilaabeen inay qaxooti soo qaataan. qaxootiga lasoo qaato waxaa u badan Iraaqiyiin iyo Congo iyo Soomaali iyo Suuriyiin ayaa u badan. haba ahaatee ilmihii muslimiinta magaalada ku yara aad ayay u daayacsan. magaalada waa magaalo yar oo iska yar oo taajir ahna oo faqar oo boobara oo waxba haysan waaye. dadku badanaa magaalada jooga ma shaqaystaan, waxay qaataan benefit. beledku ka imaada benefit oo qaataa. cadaanka xataa magaalada leh benefit oo qaataa.